مناسبة كونتن يلا بقولي كسورة هي مركي عسكري يقدم بيه سماركي جريسو كوري عيد قبلة وغيجا صوماليا إسلام رهان تأثير للتاجي على كيجور هي حرة صوماليا يرتو أيام على نمدي شلي لرحوس مقال مدحدا أمام القبلات كقاتل استيقظ الصوماليا تلاحا مناسبة رأي كسو غير كرين قيمها كالدول بالشدة يولينا مسؤولين تمام الكخاتم ووركعي مدحولها مامل كخاتمه أحمد علمي عثمان أحمد كراشة كما كتبسان قولها وسيرها هي مسؤولين كره هي وحا لغو قبطي بردها وين لو يقانو برد خاتمه الكاتيوها وقتي لغيق ليري مامل قبيت كخاتمه حفلة هي وغورين بوحا كهالي ما يركع عاصمة التريح وحنا وحبا أنا كنا حنحصدي كونتن يلا بسنا كور توي قسيدوها أنت في كذب يا وحى هذا الكيقاتي وزير كحيانك وزارة الرماء بالشدة أمام الكخاطمة بفتاح اسمه ملعة وسجل فعانتي سكان الله يمضان كايلات هاي اللحية لبابتن كاتشون وحنا وشيغين إنه يمدوا هاي إن لو وين يوم أنت وكانوا وشيغين هاي مالتي عالم كي سومالية يقول ري حر وقبض هو ذلك الصومال فصدد اللحية لبابتن كاتشون يا وحى كنها وشيء كحيانك اللي رجع حرمريكا إلى خيرات تدوير بأمام الكخاطمة الرحيم مدحوينها وله وسيلة وردة بشدة عيدك خاتون استيف الصومالية لما أنتم وحنو صلاة صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan halkan sugnay xuskii bixida tafi jun waa maalintii cala Soomaaliyeed ugu horeysay la qaato xuskeedii ayuu sugnay bardahan waa bardihii taariikhiga ahaa lagu aasaasay khalatumo iyadoo ay ahayd markii ugu horeysay calanka raadintiisa meeshii halka Soomaaliyeed ka bilaabay ay ahayd tareex maanta aynu rajeynayno in ay qaatumo siyaasadeedu ahayd inay soo keento Soomaaliyeed maanta waa maalintii 26 Juun waa maalinta taariikhiga ee dhammaan odayaashii iyo madaxdii ugu horeysay ay ka sheekeeyeen waa maalinta inaga hormuud ka ahayn taariikh ahaan waa maalintii uu hogaaminayay taladeeda garan ali waa maalintii hogaaminayay waa maalintii talada ka dhiibanayay waa maalintii himiladii iyo hankii uu lahaa uu ku hogaaminayay gobolada waqooyiga Soomaaliya waa maalin aan oran karno runtii ee israaca Soomaaliyeed waxaynu ka ahayn qayb weyn ama inaga hogaaminaynay waxaan oran karaa waa maalin farxad iyo gaar inoo leh reer Khaatumo inta kadib duulaha siyaasiga ee maamul goboleedka Khaatumo ay soo hoysay waxa kamid ah in maanta Somaliland inay maanta ogolaatay inay Soomaali la hadasho oo ay miiska wada hadalka Soomaaliyeed tagto guusha siyaasiga waxa dhaliyay maamul goboleedka Khaatumo ee Soomaaliya وادوكتين كوبي لباتن سنة بحاحية دقانيين كوبي لباتن سنة كريدي دقانيين كوبي لباتن سنة ببعث تاقنايين وحال لبسو أفتر يصدح بلوت إن النسك ولا هذا لدى كويماتات قاسم أقول انت هكذب ما انت ومالوين ومالنتي لحية لباتن كتشون كنيو سقال بغل لحدنكي markii qaybta waqooyi xorowday 12 habeenimo ayaa la saaray calankeenii wirwirayay ee loolan jiray maxaan ku ilaadaa ninkii loolan jiray Suldaan Timacadda loolanayay wuxuu sameeyay manusqaamo aan sidoo yahay eegne kan nasiib kan saar markii uu lahaaway كرينا إنه ما إن صومرين جميس حقيقي ذاتك كلية وأن لجميسن بينهين وحين استعمالي إلى حرينه ومد يجي لجميس حقيقي نصيب درو ما أنت يجي لا ولي وحي كدحلين ذاتك أي كدحلين جميستها بوحي ربانولين كسر في نيان ومديها لجميسن إنها بنشينا مدحوينها مامل كخاتم أحمد علمي عثمان أحمد كراشة أي كل رامين يمدى إليه هاي مثل يخطوة كابيشة تشون وعنو الشيرين الذي كنت سرعي تسوري
markii askarigii ugu dambeeyey isticmaalka ingiriisku ka howleelo ciidda dalka Soomaaliya isagoo xusay in bulshada Khaatumo ay tahay hormuudka xorriyadda dalka Soomaaliya isla markaana inay yihiin kuwa la degdegeen inay xusaan maanta oo kale taariikhda ka raaciyay maamulka Khaatumo iyo shacabkiisa ay markaasi ay muhiimad weyn u leedahay 26 Juun isagoo xusay in kumanaan xorriyadii daraawiisha ay ku nafwaayeen la dagaalankii isticmaalka ingiriiska oo akhirkii laga heliyay dalka 26 bishii Juun sanadii 1960 Afrika soo ahaataba munaasabadana waxay dibadda faraha loo soo agaasimay ayaa dadka wasiiradooda waxaa ka muuqatay farxad iyo reereen iyadoo goob kasta laga taagay calanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee buluugga xigta cadna ee dhexda kaga taalo toddobaadkan ayaa waxa uu noqonaya toddobaadka Soomaalidu taqaana toddobaadka xorriyadda Soomaaliya iyadoo 26 gobolada waqooyi xoroobay 26 ay Jamhuuriyadda Jabuuti kala soo noqotay xornimadeedii isticmaalka Faransiiska halka kowdii Juun gobolada koonfureed ay dabada kaga dhaceen isticmaalkii Talyaaniga isla markaana ay qasontay midnimadii labada gobol waqooyiga iyo koonfurta oo markii dambe Jabuuti Jamhuuriyadda Soomaaliya goor dambe weeye waxaan ku bilaabayaa salaamaha ka bacdi waxaan baaq u dirayaa labada reer ee walaalaha ah ee ku dagaalamaya meesha la yidhaaho docmo oo khasaaraha weyne uu ka dhacay aad iyo aad baan uga xumahay waana ku kalsoonahay inaad ka wada xuntihiin oonu ka wada xunnahay baaq nabadeed baan idiin soo diraynaa joojiya xabadda xabadi xal maaha weliba mid gudaha oo xal maaha joojiya wixii dhintay allaha u naxariisto waxa dhaawaca ilaahay caafiyo intaa ha ku ekaato ayaanu leenahay maalintan aynu u dabaaldegaynaa waa maalin Soomaaliyeed horta sidaa ogsoonaada waa maalintii calan ugu horreeyey ee Soomaaliya ay leedahay oo inta soo baxay sida laydin sheegay runtii waxa Galaal Cali Galaal Jaamac iyo raggu ku jiro ayaa hormuud u ahaa oo raggii ka shaqeynaya gobolada waqooyi waad la socotaan oo ilaa 5 reer baa wada degan reer qura hadda meelaha ordaya sidii uu sheegay Cabdi Fataax waxay dantu ku qasabtay markii Khaatumo dhalatay oo la arkay awoodoodii inay hor fadhiistaan Soomaali inay ogolaadaan tani ka adag Soomaali waxay tabariyaan ma hadla waxaynu inagu maalintaana inaga sidnay calankan keenay maantana inaga waxa ay nagu dagaalameen waxa weeye war Soomaali aan noqono oo Soomaalida ka mid noqono xariga u dhaxeeya koonfur iyo waqooyi iyo Soomaaliya waa Khaatumo hadday kala saarto iskuma oolayso Soomaaliya haddana waan isku haynaynaa taa iyada intaasaan kaga baxayaa waa midnimo Soomaaliyeed baynu weligeenu halgamaynay waana u halgamaynaa Puntland shacabkeeda walaalayna shacabka Puntland iyo shacabka Khaatumo waa walaalo wax mushkiladii kama dhaxeeyaan waxaan maqlay kuwa maamulaho ku kicinaya shacabka waa lagu soo duulaya waa la leeyahay Khaatumo idin leeynaysa waa been hadda ma Khaatumo bolisigeedu maaha inay shacab wax yeelayso walaal Faarax telefishinka caalamiga ee Soomaaliya degmada Saleex